iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay shacabka Somaliland ay hadal hayeen in suldaanka guud ee Oromadu uu iman doono magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ayaa arrinkaasi wax laga xumaado ku tilmaamay Suldaan Xasan Suldaan Cabdilaahi Suldaan Cabdiraxmaan oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ee Somaliland waxaana uu suldaanku ka hadlay inuu arrinkaasi yahay mid aan macquul ahayn waxaana suldaanku uu sheegay 4 qodob ay isla qaateen salaadiinta Somaliland kulan ay wada yeesheen waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya indhawaalaba waxa la isla dhexmarayay magaalada tan Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland wafdi Oromo ah ay ku soo beegan oo doonaya dhaqanka waxay u socdaan waa qadiyadii ka dhacday hawaday runtii la yaabay nala noqotay arrinta maanta qadiyada hawaday ka dhacday falkii xasuuqii loo geystay shacbiga aan waxba galabsan ee Soomaalida ah iyadoo aad iyo aad uga tiiraayoonay uga xunnahay dadka iyaga halkaas sidii loogu laayay ayaa waxa hadana yaabkiisa nagu noqotay oo aanu u qaadasho waan ugu noqotay halkan baa la idinku imanaya oo dhaqankii Oromo idin imanaya ta salaadiinta Habarawal waanu ka wada hadalay shir weyn baanu ka galnay waxaanu ka soo saarnay 4 qodob 4 qodob waxay kala noqonayaan kow aad iyo aad waxaan uga xunnahay isla mar ahaantaana si tiiraayeen looga xunnahay falkii bahalnimada ahaa ee ka dhacay hawaday ee lagu laayay dadkayga aan waxba galabsan laba waxa kale oo iyadana la yaab nagu noqotay oo aanan marnaba ooda ka rogayn waftiga la leeyahay Oromo mar haddii aanay soo marin oo aanay waxba ka ogeyn dawlad deegaankii Soomaalida Itoobiya iyo dawladda federaalku iyo dawladda Somaliland marnaba lagama yaabo inaanu qaabilno ama la kulanno waa qodob ka waa ganafkaan ku dhufanayna in aanan la kulmayn qaabilayn arrin aan duwalkii mandaqaduba ogeyn oo toos noogu imanaya waxay nagu tahay deelqaaf bay nagu tahay dawladda gacanta ku haya dawlad deegaankii Soomaalida gacanta ku haya dawladdii dhexe federaalka gacanta ku haya intaas waa qodobada aan ku soo ururinayno waxa kale oo la yaaba ilaa maanta kama hayno qowmiyadii Oromada dawlad deegaankoodii kama hayno wax raali gelina dawladda dhexe ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa ka haynaa waa naga tacsiyadii dawlad deegaanka Soomaalida madaxweynaha Cabdi Maxamed Cumar isagoo u tafaxaytay isagoo gacanta ku haya arrintii waxaan mahadnaq ballaaran u diraynaa madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamed Cumar kaalintii geesinimada lahayd ee uu ka qaatay qadiyada iyada ah aaskii qaran uu sameeyay dadkayaga iyo sida uu hawsha ugu tafaxayday yahay ayaan madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida isagana ugu mahadnaqaynaa arrimihii abaaraha ka dhacay mandaqada geeska Afrika ee ka dhacay dadkayaga ku teedsan xuduudaha iyo deegaanka xataa Soomaalida kaalintii firfircooneyd uu ka qaatay madaxweynaha dawlad deegaanku Cabdi Maxamed Cumar isagana hambaliyaan u diraynaa insha Allah bidmillaahi kariim horumarka uu ka wado ummadayadii uu wado dagaalkii dhex maray Oromada iyo Soomaalida oo sababay in waxyaabo fara badan oo iman jiray Somaliland ay istaagaan ayaa waxa shacab badan oo kamid ah Somaliland ay mahadiyeen inuu istaago qaadkii ka iman jiray dalka Itoobiya waxaana ay aaminsan yihiin in dalka Somaliland uu gaari doono isku filaansho Maxamed Farax Bilay Star TV Hargeysa.